wax ka baro taariikhda boqoradii Balqiis ee xukumi jirtay boqortooyadii Saba. maxaa ka jira in boqoradii la oran jiray Balqiis hooyadeed ay ahayd jin? waxaan ka soo sheekeynay in Allah subxaanahu wa ta'aala boqortooyadii Saba markii nimcadii Allah subxaanahu wa ta'aala uu siiyay ay ku kufriyeen, in biyo xireenkii weynaa ee Saduma Arab uu soo dumay oo daadku uu qaaday guryahoodii, beerahoodii, iyagiina uu ka dhigay wax uu laayo iyo wax kala tafaraaruqa oo adduunka ku kala baaha oo ka qaxa. dhulkii iyo beerihiina ay isku beddeleen dhul abaar ah oo dhir nafci leh aysan ka soo bixin. reer Saba markii ay kala tageen ayaa meeshii waxaa ku hartay qabiil la yidhaahdo Ximyar. qabiilkaas ayaa dib u soo nooleeyey boqortooyadii Saba ee ku taallay Ma'rib. dadka qaarna waxay yidhaahdaan boqortooyadaasi waxay ka bilaabatay Ethiopia meesha la yidhaahdo, oo halkaas ayay Balqiis markii dambe boqorad ka noqotay. boqortooyadii Saba markii ay dib u soo laabatay oo ximyariyiintii ay dib u soo celiyeen ayaa markii la soo gaaray nin la yidhaahdo Hadhaad ibn Carcar oo markaas ka ahaa boqor Saba ayaa maalin maalmaha ka mid ah isagoo ugaarsanaya wuxuu arkay deero cad oo aad u qurux badan oo yey ay rabto inay cunto. markaasuu yeydii intuu ka celiyey oo ka cayriyey ayuu deeradii dabagalay si uu u ogaado meesha ay ka timid oo deerooyinkaas cadcadoo quruxda badan ay joogaan si uu u soo ugaarsado. deeradii sidii ay u socotay ayay waxay gashay god yar, meeshii ayuu ka dabagalay. markaasuu wuxuuba arkayba inuu galay boqortooyadiisa ku dhex taalla oo qusuurta iyo baalaasiska ku yaalla ay ka qurux badan yihiin kana waaweyn yihiin kuwa ku yaalla Saba. Hadhaad ibn Carcar isagoo dhex taagan boqortooyadii ayaa waxaa u yimid nin u labisan sida boqorrada. markaasuu intuu isku sheegayba wuxuu ku yidhi, meeshana aad joogtid waa boqortooyadii jinka, anna waxaan ahay boqorkii jinka. iyagoo wada hadlaya ayaa halkan waxaa ka soo baxday gabar aad u qurux badan. markaasuu wuxuu ku yidhi, tanna waa gabadhaydii, waa deeradii markii dhoweed aad badbaadisay oo yeyda aad ka badbaadisay. waan kuu mahadnaqayaa, haddii aad iga aqbashidna waan kuu guurinayaa. boqorkii Saba ee Hadhaad ibn Carcar la oran jiray, gabadhii boqorka jinka uu dhalay ayuu soo guursaday. kadibna wuxuu keenay Saba. waxay u dhashay baa la yidhi boqoradii Balqiis. boqorkii Hadhaad ibn Carcar ee Balqiis aabbaheed ayaa waxaa la gaaray wakhtigii adduunkan uu ka tegi lahaa. dardaarankiisii u dambeeyey ayuu u dardaarmay wasiiradiisii iyo dadkii la talinayey. wuxuuna ku yidhi, haddii maanta aan geeriyoodo oo aan dhinto, boqortooyada gadaashay waxaa la wareegi doona gabadhayda Balqiis. qof maanta ka caqli badan oo ka xigmad badan oo ka ra'yi fiican ma jiro, mana joogo. markii u horraysay xoogaa waxay damceen inay ku mucaaradaan maadaama gabar ay tahay, horeyna aysan gabar xukun u soo qaban. laakiinse odaygii Hadhaad ibn Carcar aha wuu ku adkaystay, wuxuuna yidhi, gabadhayda ayaa boqoradda Saba noqonaysa. markii uu dhintay Hadhaad ibn Carcar, boqortooyadii Saba waxaa la wareegtay Balqiis. Balqiis xukunka markii ay la wareegtay isla markiiba waxaa ka soo horjeestay oo mucaarad ku noqday nin la oran jiray Camr dhul Adcaar. ninkaas oo isaguna ka mid ahaa ximyariyiinta oo isaguna sheegtay inuu boqorka saxda ah uu yahay. dad badan oo ka mid ah dadkii deganaa Saba ayaa Camri soo raacay oo isaga u soo raacay inuu yahay boqorka saxda ah. Balqiis marka si mucaaradkiisa ay u baabi'iso way u fakirtay. waxay tiri, haddii ay dagaal gasho waxa meesha ku baaba'aya oo labada dhinacba ku dhimanaya waa dadkeeda iyo shacabkeeda. marka dhiigga shacabkeeda si ay u badbaadiso, Camri waxay u soo bandhigtay inay isguursadaan, kadibna xukunka saas ay ku shaargareeyaan oo waddanka ay saa ku wada maamulaan. Camri waa uu ka yeelay dalabkeedii, waa loo guuriyey Balqiis. habeenkii u horreeyey markii loo soo gelbiyey oo ay isku yimaadeen ayay khamri intay ka dharjisay oo sarqaamisay. markii uu miyir beelay ba intay toorrey soo qaadatay ama midideedii ayay qoorta intay ka jartay oo ciidankeeda u dhiibtay madaxiisii bay waxay tiri, magaalada dhex bartankeeda ka laalaadiya si dadkoo dhan ay u arkaan. mucaaradnimadii Camr iyo khilaafkiina saas ayay ku soo aftartay iyadoon dhibic dhiig ah oo shacabkeeda ah dhulka ku daadin. Balqiis saas ayay uga takhallustay mucaaradkii boqortooyada Saba. keligeed ayaana ka talin jirtay boqortooyadii Saba ilaa xilligii Nebi Suleymaan calayhi salaam uu soo baxay, ilaa markii dambe shimbirkii hudhudka ahaa uu soo ogaaday oo kadibna Nebi Suleymaan calayhi salaam intuu u yimid oo u sheegay in ay jirto boqortooyo meel halkaas ku taalla oo qof dumara ay xukunto, dadkaasina ay caabudaan qorraxda.
nebi sulaymaan calayhi salaam waa tii uu waraaqda u diray oo uu ku yidhi ii imaada idinkoo muslimiina waa tii ay la tashatay wasiiradeeda ay ku dhaheen annagu waxaan nahay dad awood iyo xoog leh wixiina soo weerarana waa iska celin karnaa laakiin maadaama balqiis qof xikmad iyo caqli leh ay ahayd waxay ku tijaabisay nebi sulaymaan calayhi salaam in ay u dirto hadiyado si ay u ogaato ninkani ma wuxuu u socdaa adduunyo iyo boqortooyo mise diintan uu faafinayo run ayay ka tahay oo dhab ayay ka tahay laakiinse markii ay ogaatay nebi sulaymaan calayhi salaam mucjizooyinkiisa iyo inuu nebi saxa yahay oo diintan islaamka uu ugu yeerayana ay sax tahay balqiis waa ay soo muslintay waxaana kaga sheekaynay qisada islaamkeeda qisadii nebi sulaymaan calayhi salaam iyo balqiis dhex martay riwaayaadka qaar waxay yidhaahdaan balqiis nebi sulaymaan calayhi salaam waa uu guursaday riwaayaadka qaarna waxay dhahaan ma uusan guursan ee wuxuu ku daray nin ka mid ah wasiiradiisa kadibna wuxuu u dhisay qasri aad u weyn